السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وفرح هاينا داوني سيد عشر كان waxaan samayn doonaa invitation ama warqadda casuumaadda weliba anagoo isticmaalayna programka la yidhahdo word ugu horreyn waxaa soo furtaa word programka la yidhahdo programkan wordka waa program muhiim ah howl walba photoshopka aad lagu sameeyana waa lagu samayn karaa isagana kow marka invitationka aad samaynaydo waxaa muhiim ah inaad iska saxdo size-ka warqadda aad ku samaynaysid warqadda invitationka lagu sameeyo A4 maahan A3 na maahan A6 aa la yidhahdaa kow marka waddada koowaad oo aad marayso waxay tahay file ku dhifo kadibna options aa leedahay meeshan waxaan u aadaynaa wax kale maaha cabirka marka koowaad defaultiga computerkaada wuxuu yahay inches inaad centimeter kasoo dhigataa la rabaa marka file aad timid kadibna options advanced aad kusoo dhifanaysaa geeskan advanced markaa ku dhifato scrollka isticmaal scrollka isticmaalaya groupkaas ay ku qoran tahay display ku dhifo kadibna meeshaas ay ku qoran tahay measurement units oo hadda inches ay saaran tahay soo fur kadibna centimeter ka dhigo okay intaas markaa samayso waxaa ku dhifanaysaa si aad size-ka iskaga saxdo warqadaada layout office-ka aniga hadda isticmaalayo waa office 2019 2013 inuu kugu jira laga yaabaa ama 2007 waa suuragal mid walba inuu kugu jiro marka almuhiim page layout na way noqotaa meeshaas office-yada 2013 19ka iyo wixii ka dambeeyana waa layout marka qaybtaas soo gelaysaa layout markaa ku dhifato group la yiraahdo waxaad imaan doontaa page setup kadibna size meel ay ku qoran tahay soo fur waxaa ka doorataa A6 ka dooro A6 warqad ahaan intaas la eg tahay waxaa suuragal marka in marka aad soo furto size A4 iyo waxyaabahaas ay ku soo baxaan A5 laakiin A6 aways maxaa samaynaysaa markaas meesha hooseysa muwa paper size ku dhifanaysaa cabirka A6ka isagoo centimeter meeqa waa fiiray widthka 10.5 centimeter 14.8 centimeter 10.5 centimeter iyo 14.8 ama 8 oo centimeter waa marka haddii A6 awoodo waxba isdhibin cabirkaana caadi sidiisa ugu qoranaysaa 10.5 oo kan oo kala tagaysa isagana 14.8 ala saas kala qoranaysa okay intaas markaa iska soo saxdo oo cabirkaas aad iska soo hagaajiso wax kale ma samaynaysid meeshaan oo zoom way tahay xogaa waa idin soo dhaweynaa wax yar sidaas oo kale marka uu yahay waxa aad soo qaadataa shape wax kale ma soo qaadanaysid warqadan hadda sawirada iyo waxyaabaha u tala gala waa soo dhigi karaa laakiin background ayaan rabaa invitation inaan u sameeyo sida aad ku soo aragteenba qaybta hore oo invitation marka shape aan soo qaadanaysaa insert-iga tagaysaa kadibna qaybtan shape isku dhifo shapekaas rectangle-ka afar geeska waxaad la ekaysiinaysaa marka warqadda la ekaysiinaysaa okay intaas markaas samayso shape format wax la yidhaha ku imaan doona ama format qaybtaas shape styleska tagaysaa garaafadaaskay ku sawiran tahay midku qalinka dusha ka saaran waxaa la yidhahdaa shape fill la yidhahdaa waa kalarka gudaha lagu shubaayo kana waxaa la yidhahdaa shape outline waa wareegyada shape-ka uu yeelanayo macnaa wareegiska kalarka ay yeelanayaan saa darteed markaad no outline aa leedahay waxaba aniga wareegyo banaanka uma baahni shape fill-kaa ku dhifanaysaa kadibna picture aa ugu sii dhifanaysaa waa marka aad rabto sawir inaad soo dhex gelido shape-kaas kadib waxaa raadinaysaa sawirka meesha uu ku yaallo sawirkii meesha uu ku yaallo folderkan waxaan idiin soo dhigayaa insha allah qaybta hoose oo linkiga isagoo waxaa dhan ku wada jiraan kadib markaas backgroundkan dooranayaa hadda intaas markaas samayso waa qaybtii dambe oo backgroundka invitation ku noqon lahayd meeshaan koraa marka aan qoraallo ku qoraynaa macnaha qoraal caadi ah sida hadda sambal ahaan hadda midkaan oo kale sidiis oo kale qaybtaas kore aan qoraal ku qorayn marka si aad taas u samayso marka waxaa lagaa rabaa kow folderkan oo dhan waa wada haysataa
haddii aad qaybta hoose kala soo degtay marka waxaa ku shubanaysaa farahan oo dhan ku shubo. waxaan waa fonts aan kuusoo diyaariyey. fartan waxaa la yidhahdaa digiface la yidhahdaa. magaca farta mar walba meeshaas kore ku qoran yahay. inaad ujeedo waa rajeynayaa meeshaas kore. waxaa samaynaysaa farta marka hesho install aa leedahay. hataa internetka ama google haddaa ku qorto farta waa helaysaa. waa farta saacadda lagu qoro. install aa leedahay. hadda wuxuu leeyahay aniga font is already installed. marka uma baahni aniga adiga laakiin install lo. okay, qaybtan oo kale ayayna tegaysaa foilex fartaas la yidhaahdo. waa farta ayadana aroosyada iyo loofka ay soo gelayaan. marka ayadana waa far kale oo muhiima. marka boor aroos ama invitation aroos marka aad samaynayso waa far aad loo isticmaalo. fartan wax walba oo capital ka dhigto loofkaas soo gelaya. marka ayadana sidoo kale install aa leedahay. aniga marka hore igu shuban tahay qaybtan ayadana stop iska dheh. tan oo kale ayadana fartaas registerkaas lafteeda waa fiican tahay. farta hadda invitation ay ku qoran ayadana install aa leedahay. okay, almuhiim fontiskaas oo dhan markaad kusoo shubato computerkaada meel walba ama program walba dhexdiisa waa ka isticmaali kartaa hadday farta kugu jirto. marka sidaas marka ayadoo ay noo tahay waxaan samaynaynaa programkeena wordkan kusoo laabanaynaa. waxaan qoraynaa marka meeshaasaan waxaan rabnaa xaflad aroos inaan ku qorno. si aan ugu qorno marka xaflad aroos waa inaan soo qaadanaa tagastibox inta badan markaa rabto qoraal. tagastibox faa'iidadiisu waxay tahay qoraallo adiga aad u tali kartid markaa rabto inaad samaydo waa inaad tagastiboxka soo qaadato. kadib dharow inaad samaynayso waa sawiraysaa. qaybtan xoogaa marka aan kuusoo dhaweeyo si aad u aragto waxaan ku qoraynaa marka xaflad aroos oo kale aan ku qoraynaa xaflad aroos. waa adigu mar walba invitationkaada waxa uu ku saabsan yahay unbaa ku qori doontaa. qaybtaas haylaadka saar. kadibna horta home tab tag. farta marka waxaa ka dhigtaa foilex fartaas. mar walba fartaas xaggee ka raadinaya. haddaad scrollka isticmaasho group f markaad tagto waa way soo baxaydaa farta. marka magaceedaa raadinaya hadda ku qoraay fartaas. okay, sizekaa marka waxaa la rabaa inaad weyney karto. sizeka farta ilaa iyo xad waxaa la rabaa inuu macquul yahay. okay, intaas markaad samayso hadda tagastiboxkaan gadaal dama cadaan iyo wuxuu ku yahay looma baahna. maxaa samaynaysaa shay formaatkaa tegaysaa no fill aa leedahay. kadibna maxaa leedahay no outline. qaybtan qoraalka dooro. kadibna maxaa ka dhigaysaa farta backgroundkan hadda anaga isticmaalayno kalarkaas aan dooranay. kan haddaa rabto iska soo gaabi kartaa xoogaa. kan haddaa rabto isagana xoogaa oo kusi dari. okay, qaybtaas markaa sida u samaydo intaas markaa aad diyaariso oo hadda halaas ay ku diyaarsan tahay qoraal hoose isagana meesha hoose ku qoraynaa oo sidii oo kale sambal ahaana. mar walba marka kuma qasbanid inaa hadda aad mid kale soo samaydo. kan waa sii koobiyeysan kartaa. maxaa samaynaysaa control d aa adeegsanayda. control d markaad tiraahdo soo koobiyeyso meeshan keen qoraalka iyo waxyaabihii ku qoraay control a dheh oo shortkaad isticmaalaysid ama heelaadka sidaas oo kale u saar. farta fariska caadiyaan ka dhiganaynaa oo hadda tusaale ahaan register oo kale fartaas oo kale aan ka dhiganaynaa sidai noqota ayadana. ama fartaas ba hataa blend script oo far fiican waa ayadana. waxaan leenaha marka size ahaan sizekaana xoogaa soo yaraynaynaa. taasoo kale aan ka dhigaynaa. qoraalkii hore meeshaan ku qoraay iska tir. waxaa samaynaysaa marka qoraalkaana qoraysaa waxaa sharaf weyn inoo ah tusaale ahaan mar walba invitationka wixii uu ku saabsan yahay ku xiran tahay in aad nagala soo qayb gasho. marka qaybtan hadda waa ugu yaraatay waa sii weyneysanayaa. tusaale ahaan xafladda arooska labada qofood marka magacyadooda aan sheegaynaa. marka si kooban marka tan dooro sii yaray sizekan ilaa 12 macquul waa 12 oo kale gaarsiiso. daarto centerka oo kale waad ka bilaabi kartaa laftiga. macnaha kuwan waxa waaye alignmentiga.
marka geeskaas baa ka wada bilaabato wax mushkilaa ma lahan. qaybtan xoogaa waxyar saas oo usii dheeray kartaa. tan oo kale heelaadka saar. mar walba wordka aad rabto qoraal inaad wax ka samayso waxaa lagaa rabaa in heelaadka aad saartid. okay, fartaana xoogaa waxaa ku fiican aan rajeynayaa in aad kalarka whiteka cadaanka ka dhigto. size ahaan tan oo kale waa iska soo yarey kartaa. soo yarey saas oo kale waa u qaadqaadi kartaa. tan xoogaa sii yarey kartaa iyadana sidoo kale. daarta hadda saasaaba xoogaa ku qurux badan inay 3 sar camal. okay, intaas markaa sidaas u diyaariso waxaa lagaa doonayaa marka labada qofood inaad magacyadoodii qorto marka oo labada qofood oo invitationka arooska aad u sameynaydi markaas inaad labadooda magac qorto. ayadana aad bay u sahlan tahay. farahan aan soo isticmaalayne fartaa doonto ayaa isticmaali kartaa. horta marka koowaad hadda kii hore text box ayaa isticmaalayda sax. maanta waxaan isticmaali doonaa word artiga. word artiguna waa shay kaloo muhiima. meeshaas sartiga tegaysaa kadibna groupkan taga si la yidhaahdo word arti meeshaas ku qoran tahay. tusaalahaan kaasoo kale aad dooranaysa. word artiga asagana waa un design kale wax lagu qoro. soo qaadi kartaa meesha rabtaa gey kartaa. heelaadka saari kartaa. qoraalkan fartiisa ayaa bedbedeli kartaa. waxaa rabtaa ka dhigi kartaa. hadda jaallaha inuu kusoo baxayaan rajeynayaa. far ahaan macnaha cabir ahaan waa yarey kartaa. fontiska aad isticmaalayda nooca rabtaa ka dhigi kartaa. bilinda scriptigan fartii hadda aan arkayno folixiska fartaan waa isticmaali kartaa. fartaasaan isticmaalayna marka. fartaas magaceeda maxaa la yidhahdaa? register soo majeed iyadaasaan isticmaalayna. labada qofood magacyadoodan ku qorayna. tusaale waxaan leenahay engineer. dabcan hadda qof hadda magaciisa aan sambal ahaan isku qoranaynaa. dii magacaada u noqdana raalli ahaaw arooskuna uusan real ku ahayn. engineer maxamuud waxaan leenahay faarax oo kale asan waa un sambal. laakiin adiga mar walba real markaad samaynaysid wax un reala laga rabaa. okay, kan marka waa soo yareerey kartaa. saan oo kale usoo qor wax yar waa qaadqaadi kartaa. calaamada moveka markaa aragto ayaa qaadaysaa shayga. tanna waa resizing cabirka aad ka bedeleysaa. saasoo kale markaa meesha u dhigto kuma qasbanid marka hal mid haddaad samaydo ka kale inaa haddana word art kala qaadato kuma qasbanid. maxaa samaynaysaa control d adeegsanaysaa markaad joogtid word program. kadib tusaale ahaan marwadii oo kale la rabaa in la qoro marka iyadana maxaa leenahay tusaale ahaan doctoraysa oo kale Marian Hassan oo kale. Marian Hassan Nur oo kale saas oo kale aan leenahay. Marian Hassan Nur waa un marwadii tusaale ahaan sambalkeeda magaceeda. okay, intaas markaad samayso xoogaa marka waxaan rabnaa maadaama labadaa qof ama invitationka innaga aan samaynayno uu yahay mid ku saabsan aroos xoogaa waxyaabo muujinaya aad soo gelinaysaa markaas loloof oo kale waxyaabahaas oo kale. see marka usoo gelinaya sawir aaday u fududahay. waxaad tegaysaa insartiga ku dhifanaysaa kadibna groupkan pictureska tusaalahaan dc oo kale aad dooranaysaa. hadda annaga kaasoo kale aan baan soo gelinaynaa. sawirka marka aad soo geliso wordka dhexdiisa sawirkaas uma diyaarsana inaad maamusho. waxaa ku dhifanaysaa picture format ama formatka ugu dambeeya taabiskaada. kadib qaybtaas markaa ku dhifato groupkan lida aranjiga wrap text meesha ku qorantaa soo furaysaa. kadibna in front of text markaa sawirku muxuu u diyaarsan yahay inaad qaadqaadi karto. meesha rabtaa dhiganaysaa kadibna waa ka leexsanaysaa. intaas markaa dhamayso xoogaa waxyar aan xagga aan u sii celiyo. adiftajka waa noo dhadhowdahay. haddaan magaca qoranay xafladda waxay tahayna aan sheegnay. waxaana laka rabaa marka meesha hoose inaan sheegno belayskii xafladdu ka dhici lahayd inaan sheegnaana laka rabaa. macnaha goobtii iyo waktiga dhexeed labadooda waxaana laka rabaa marka hore horta inaan astaan ahaan ku muujino. astaanta locationka sheegaysaa soo qaadanaysaa picture ahaan usoo gelinaysaa. internetka waa kala soo degi kartaa. haddaad doonto ku midaan diyaarsan oo linkiga hoose waa kala degi kartaa. sawirku markuu sidan oo kale usoo galo pictureska tag wrap text kadibna in front of text size ahaan cabir ahaan yaree soo yarey meesha u rabto aad inaad geysan kartaa la rabaa. saasoo kale okay, geeskaasoo kaleba dhigba saasoo kale aan dhigno.
okay haddana waxaan soo qaadanaynaa calaamadii ama astaantii timeka iyo macnaha dateka muujinaysay soo gashanaysaa sawir walba fiire marka la soo geliyo maxaa lagaa rabaa wax la maamuli karo inaad ka dhigto raab tagastiyaa tegaysaa ardada qaara waxay yidhahdaan waraab tagasti laakiin wdu waa laga tegayaa raab tagasti aa laleeyahay okay asagana sidoo kale yareey size adugu un sizekii oo kale ka agdhow ama lamida saas oo kale ah okay labadoodana waa un isku aadiinaa yaasaan okay marka waxaa sheegaysaa timekii iyo dateki macnaha ay wax u dhacayaan iyo locationka si marka u qorto qoraal marka meeshaan fiiri waa shape qoraal kuma qormaayo maxaa lagaa rabaa inaad soo qaadato text box insertia tegaysaa text box kadibna dharow text box ayba hadda xoogaa meelay wax ku qaldameen dileed naga taabo kan uma baahnin haddii wax kaa qaldamaana control z waa isticmaali kartaa yaa dharow waa leedahay kadibna hadda anagaa sawiranayna midkaan u baahanahay intaan u baahanahay ilaanaas kadib qaybtan marka saas markay tahay waxaan sheegaynaa marka locationka oo ka dhexdahay hadda marka location maadaama aan ahayn waxaan leenahay hotel nime aan leenahay saas oo kale aan leenahay kadib marka haddaan rabna ina waxaan hoos ka baxaan maxaan samaynaynaa formadan tegaynaa style shapeska tegaysaa kadibna maxaa samaynaysaa no fill iyo no online inay meeshaas wax kaaga baxaan aan rajinaya kadibna dooro home tab tag kalar ahaan ama whiteka labadaas kalar aad u isticmaalan farta haddaa rabto fartaa rabtaa ka dhigi kartaa tusaalaan fara badanaa jiraan algerian oo kale far leedaha waa jirtaa al haddaa qorto farta magaceeda ku garaa kadibna intaraa leedahay samay kartaa fara laakiin hadda xoogaa farshaxan oo kale waad u adeegsan kartaa hataa hadda fiiri fartii folkiska haddaad hadda isticmaasho maxaa dhacaya fiire adana waa isticmaali kartaa qaybtan hadda markay saas tahay sizeka xoogaa wax yaraan yaraynaynaa macnaa calaamadaasa laga yareeyaa okay saas markay labadooda markay qaybtaas kugu diyaarsan tahay oo magacii inaad mid kale marka soo bilowdo waajib maaha kanaa geesihiisa tegaysaa keligaa kusinaysa marka calaamadaas aragto kadibna control d aa leedahay waa control d-du waa code waa wax kale maaha control c control v xataa waa isticmaali kartaa ya qaybtan marka waxaan ka rabaa marka inaan ku qorno taariikhda caadiga oo ku dhacayan kadibna timeka aan sheegno fartaan horta sideeda dhan waa iska bedelaynaa time is new roman caadi aan iska qaadanayna markaan taariikhda qorayno waxaa leenaha tusaale ahaan 26 tusaale ahaan bisha 10aad 2000 tusaale ahaan 21 okay sizekan xoogaa aad inuu weynaa moodaa wax yar soo yareysas camal oo kale taasoo kale aan ka dhigaynaa kadib qaybtan ayadana xoogaa sii yareeray kartaa saacadana in lagu daro waa muhiim ayadana saacadda laakiin far gooniya raba inaan ku qoro geesaha keli ku sii kadibna control d dheh qaybtaas markay sidaas ku tahay dooro ayadana timeka qaybta tusaalehaan kadib waxaan leenahay 10 saac oo kale aan leenahay 10 saac oo pm kadib meeshaana marka kaa rabaa intaan dooro kadibna far la yidhaahdo digiface aa ka dhigaysa digi markaa qorto ay kusoo baxay xaggee ka helaysaa qaybta d-da macnaha digiface aa tusada fartaas magaceeda waa farta timeka iyo waxyaabahaas lagu diyaariyo waa lagu qoro sida saacaddii camal ay u samaysan tahay ma fahmaysaa qaybtaas markay sidaas tahay haddaa rabto hadda fartaan haday kula fiicnaan weyso waa iska bedeli kartaa fara kale oo fiican way jiraan oo waxaan lagu diyaari karo hadda fartaas registerkaasaan iska qaatayba okay hadda marka almost stationka hadda waa noo dhow yahay qaybta dhamaadku ku dhow yahay hadda marka waxaan samaynaynaa calaamadda halkaasaan la ekaysiinaynaa dafire warkaas hotel namekan hadda hadii xoogaa farta aysan ku qancin oo kale ayadana waa iska bedeli kartaa register oo kale fartaas waa ka dhigi kartaa sidaas markaa u diyaarisa marka waa hadda station macquula waay wax hadda photoshop uga baahan tahay malaha design walboo samaynaysa maxaa lagaa rabaa fontiska iyo kalarada iyo waxyaabahaas inaad iska sixi karta bisaa muhiim hadda marka invitation markaa sidaas u dhamayso oo kale waxaa lagaa rabaa inaad seefatid kadibna pdf aan inta ka dhigatid qolooyinka wax daabacayo kale inaa ugeysidaa la rabaa kadib ayaga A4 4 xaba saarayaan oo macnaha invitation warqado yarar waa hal A4 lagu daabacaa
A4 halkii A4 ba 4 xaba la gelinaa ayagaa saarayan marka adi hadda designkii uu ku samaysan yahay see marka u save garayne qof walba inuu fahmaya rajina fayla tegaysaa seefaas oo kale PC ama computer oo kale kali ku siinaysaa magaca oo la baxaysa waxaan leenahay invitation oo kale aan leenahay kadib meeshaan word document ku qoranta maxaa ka dhigaysaa PDF tusaale ahaan meesha dhiganayso desktop aan ka dhigaynaa kadibna save aan leenahay okay hadda automatic asaga ma noo soo furmayba wakaas marka hadda designkii aan diyaarinay sidaas u yaala caadiyan hadda meeshii aan kan minimize dhaho kan kale minimize sii dhahana ayadoo hadda sambal ahaan PDF ana hadda meelaha waa laga helayaa maybe desktop aan soo dhignay erayga saan oo kale hadda uweys oo kale waxaa la sameeya waxuu ka bilowdaa la sheegaa la taabtaa invitation hadda waa kaasaa marka isagoo PDF okay aad inaad u fahantaan rajeynaya qaybtaas oo sida loo sameeyo invitation waa dhexdiisa wax badan inaad ka faa'iido waa rajeynaya saaxiib ama saaxiibayaal horta waa mahadsantihiin laakiin janaalka subscribe la saaro annagu kun joogna hadafkeena wuxuu yahay 1 million subscribe inaan gaarno insha allah inaan naga dadaashaan oo casharada sii share garaysaan oo like comment-ga dhexdaana way ka rajeynayaan mar walbana hadafkeenu wuxuu yahay in aan soo gudbino wax anfacayo bulshada oo wax ka faa'iidayaan adikuna nagu caawiya si yoolkeena 1 million subscribe aan u gaarno waana mahadsantihiin kulan dambe oo xiiso leh casharaduna mar walba waa isdaba socdaan